warahmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Yusra Media. Bacda salaan walaalahayga qiimaha iyo qaayaha mudan ee Soomaaliyeed. Intaan nii qotan galin qodobadan nii xambaarsanahay. Waxaan jeclaystay inaan hordhacni la wadaago. Hordhacaas oo ku saleegsan ducadaas aan ku wajahayo walaalaha Soomaaliyeed ee qurbo joogta ah. ee ximinta muhiimadda ah ee qowmiyadda Soomaaliyeed. Kuwaas oo qayb ka mid ah Ilaahay naga oofsaday. Kuwaas oo uu haleegay ama nasiibo ku noqday cudurrada halista ah ee hadda waji ku soo wajaha adduunyadan. Mid ka mid ah oo la yiraahdo corona. Viruska corona ama Soomaali ahaan haddaan u dhigno faafiyaha corona. Kuwaas aan ugu ducaynayno dhammaantayna jannadii firdawsi Ilaahay inuu ku waariyo. Cadaabkooda Ilaahay inuu naarta ka ilaaliyo. Cadaabtul qabriga Ilaahay inuu ka ilaaliyo. Xisaabta Ilaahay inuu u fududeeyo. Ilaahay xisaabta inuu u fududeeyo. Anakana samriyo iimaan Ilaahay naga siiyo. Inta Soomaaliyeed ee maanta la tacaalaysa naftooda oo la halgamaysa cudurkan corona, isbitaaladana ka buuxa qurbaha. Waxaan leenahay Ilaahay Rabbi Raxmaan Raxiim oo Qafuur Raxiim ah aan ognahay dhammaanteen intii muslina. Waxaan ka baryaynaa inuu caafimaadkiina taama Ilaahay nigu guulaysiiyo. Inuu caafimaadkiina Ilaahay nii soo celiyo. Ilaahay inuu ni garab galo iyo ciidamadiisaba. Kuwayna caafimaadka qaba. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga heeyo cudurkan halista ah. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan ka badbaadno. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan ka gees marno. oo na gees mariyo. haddaan arrinta halkaas uga soo afjaro oo qodobadeeda toos u sii galo walaalahayga qaaliga. Waxaa jirta 4 qodob aan doonayo maanta halkaan inaan igula falanqeeyo. Muhiimadoodana aan ka taabto. Soomaali si kastay runta u dhibsato. Qodobka koowaad wuxuu yahay dalka iyo dadka. ummadda Soomaaliyeed xagee ku wajahan tahay, dalkeenana xaguu ku socdaa. Waa socdaaya xaguu ku socdaa. Qodobka labaad waxay tahay baraha bulshada iyo cudurka haleegay oo viruska ka daran muxuu yahay. maxaase ka socda baraha bulshada dhinaca qowmiyadda Soomaaliyeed. Qodobka saddexaad aan doonayo inaan dul istaago anila dul istaago waxay tahay uu ku wajahan yahana ninka la yiraahdo Daahir Cali Sow oo qurbo joogta ah intii muddo yaro gaaban qurbo joogta ah. baraha bulshadana qayb badan ka xambaarsan ka hagana. qodobka afaraad oo ugu dambeysana waxay tahay arrinta Sufyaan Afar Xaasle maxay tahay, maxay salka ku haysaa. hor ahaantii qodobka koowaad haddaan ku bilaabo walaalahayga qaaliga ah ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed anfacaya. anoo ku hadlaya codka dhalinyarada haddeer soo madax qaada wax soo baratay ee dal iyo dibadba jooga oo u wixii haddeertaan doonayay xilka Soomaaliyeed inay la wareegaan. dalkooda iyo ummadooda Soomaaliyeedna inay wax taraan. anoo codkooda ku hadlaya inta qalbigooda saafiga yahay oona cawdad deesaneen oona uurka ka bukin.
doonayana firka ka dambeeya waxay dhalaan iyo waxay sii dhali doonaana inay ka badbaadaan ummadda cadirtan Soomaaliyeed waxay ku wajahan tahay. Anoo codkooda ku hadlaya ayaan waxaan ka taabanayaa meeshaas. Dalkeena waa la iibsaday. waxaad ku garan kartaa maalgashi wax la dhahaan oo lagu soo galay. maalgashi waa lacag la isdeemiyo, ma ahan daharo la iska kortaago, ma ahan munaasabooyin la dhisto, ma ahan dhul la iska beeciyo oo deen lagu qaato ama lagu beeciyo. mideeda kale waxay tahay ganacsatada maalkooda la duduminayo, doolarkooda dhulka la dhigayo si ay dhaqaalaha Soomaaliyeed dib ugu kacabaan, siday deemahay galeen isaga bixin waayaan. iskaa wax u qabsa dadkii u tagay daacadda iyo quluubta saafiga maalkooda dhulka lala galo. sidoo kale waxay tahay saqiirada agoontii rajada ah iyo hooyooyinka taagta daran iyo hablaha inay qaxooti dalkooda looga dhiga iska daaye wax geenjad lagu magacaabo tarniigii la yaqaanay 90kii lagu hareeray guri looga dhigay caasimadii dhexdooda. maanta qadada la habeen dambe ayna ogeynba ama bari dambe waxay cuni doonaan. waxaa kaloo jirta waxay tahay dibadda inay ciidanaad tiri, siyaasiyaad tiri, mooryaanaad tiri, wuxuu rabaa ha ahaadee shisheeye oo dhan laga soo buuxiyey dalka siday ugu farcamaan, ugu farcamaan. caaway aqoonyahanadii aan dalka iyo ciidda iyo cirka iyo hawada Soomaaliyeed iyo aan u dhiibanay madaheena Soomaaliyeed, kuwaasoo dibadda shaax ku soo cabaya, maqaaxiyada ka qadaynaya, markay dalka yimaadaana sidii Bollywoodkii Hollywoodka inay la joogo aktarada adduunku la yaabay noqdeen. se isku rifaaya macaarid iyo muxaafid ayaka isma dagaalsanee waxaa la yiri shacabka dhameeya, laakiin fahmadaas ma fahansano dadkay u talinayeen inay dhameynayaan. siyaasadda cudureysan oo qurunka ah oo qurbaha dhan sida westernka isku halaagi jireen, isku dhameyn jireen ee hadda shalayta ay ka qabaan ayaa waxaa la geeyay dalkii oo la yiraahdo qabiil. qabiilku waa wax wanaagsan, laakiin qabyaalistnimada ama cunsurniyeednimada walaalka kugu jismiga ah waxa la yiraahdo ayaa la geeyay, taasoo sababtay inay ku talaalmato ummadeena Soomaaliyeed, taasoo ay ka dambeeyaan islaamaha iyo odayaasha adduunka ka qoostoo sii socda jecel raaxada dollarka inay ku raaxaystaan, aanan ka fikirin waxa ka dambeeya iyo farka ka dambeeya inuu noolaan doono inay jiri doono waxba ka gelin. kuwaasoo ku heshiiyey inay ummadda Soomaaliyeed meel ku kala taagtaagaan sidii xoolihii la dhihi jiray waa duurjoog. hadda gobol intay ku xiraan labadii gobol Soomaali laisku keenay si kala firdhiyay, kuwaasoo meel kastaba calanka taagay. federalism waxa la yiraahdana Soomaali u soo hoyaadsiiya. federalismna hadda nin macnaheeyo walaalo iga qaaliga waxaa qaata dadka kala diinta ah iyo kala dismiga ah iyo kala luqadda ah, kuwaasoo loo diidayo inay isku halaagaan, isku dagaalaan, maadaama aysan isku jismiba ahaynba firkoodaba. laakiin dadkeena isku midka ah, isku dhiigga ah, isku luqadda ah, isku diinta ah adduunkii waa ka dhammaadeen intooda badan. Soomaali baa ka hartay. maxaa yeelay dheh
maxaa yeela dheh firkaas wuxuu u dhammaada waxay tahay nasiibada haddeertaan aan ku jirna aan isku dhammaynayno sidii tanigii hadda meel lagu soo xorxooray ayaa dadkan soo mareen wayna arkeen anakana waa ku soconnaa hooyo Soomaaliyeed nafteeda la tacaalaysa gaajo iyo oon dilay ma hadli karta haddeertaan dhalinyaro dalkii jooga oo afka laga sharooteeyey oo laga dhaadhicsiiyey laguna barbaarsiiyey inay taageeraan siyaasi aan qadada maanta ka bixin karin ku taageeraan qabiil wax la yiraahdo waxba dalka kama qaban karo laakiin haddaan nahay qurbo joog haddaan nahay dadka ogsoon macnaha ay tahay isku jismiye ahaanta iyo isku ciid ahaanta dadka ogsoon Soomaalinimada qiimahay ku fadhiso markay shisheeye ka caana cabaan sirta shisheeyahana og ayaa badbaado dalka u noqon doono ayaa badbaado dalka u noqon doono waxaa jirta waxay tahay walaalayaal qaali inay meeshii qashinka lagu aruurinaya caasimadii Soomaali noqotay meeshii aktarada waaweynaaday oo dhig cabayaasha ah oo sagaashanadii qaxay dib dalkii ugu soo laabteen ay ku xifaaltamayaan inay jaabka iyo guryaha qabyada ah ku dhistaan naftooda u shaqaysta kaliya iska fikire dadka wax ma taro ogaada dabad ilifna wax ma taro kuwa baraha bulshada haddaan u soo laabto ku jira ee dabad ilifsayaasha oo aanan ba'iita aanan qorin doonta Titanicana soo raacay tahriibka ku imaada intooda badan aanan maanta waraaq ayka iska leeyihiin aanan qori karin aqrin karina shisheeye gacanta hoorsaday curadana ku dhaceen cudurna ku soo haleegsan yahay maadaama jismadooda ay mid madow tahay lagulana talagelay ciidahay joogaan cudurana kiimikada ay ka qaadayaan kuwaas oo naftoodii nacay haddeerna dib ugu laabanayo inay dalkii iyo dadkii halaagaan waxay u soo baxeen naftooda inay badbaadiyaan iyo ubadkooda waxay u gaashaan qaateen inay dalka dadka jooga iyo ummadda ay halaagaan oo kasoo barakiciyaan aniga waan dumaye maxaa adiga heerkaaga taagsiyaa la marayaa maanta anigaba ma nooliye maxaad adiga nimcada iyo barwaaqada ugu nooshaa waxaan aniga nafteeda saagay walaalkii lagama yaabo inaan ka quudiyo sheekadu taas bay maraysaa waxaa la gaaray qalqaybsi Soomaaliyeed iyo dhaqaale Soomaaliyeed la dumiye iska daayay ubadkeena haddeer soo kabcaya Soomaaliyeed ubadkeena haddeer soo kabcaya oo ubixii dalka la rabay inuu ifiya ah quruxda u noqdo qoraxdii cadceedii haddeer soo baxday oo la doonayo maskaxdeeda oo dad aan lahayn oo freesha inay dalka ku badbaadiso ayaa intii daroogo wax la yiraahdo laguna tabciyey dhiigana looga shubay qarax balaayo la yiraahdo oona cunugan Soomaaliga aan ku tashan marna naftiisa inuu halaago diin iyo quraan lagu soo tabciyey intii loo xiro Soomaali doogsho leh hadba hotel cunto ka socon isdhahaaya ama meel fadhiisa dhahay ummadana muslina oo walaalihiisa haleegay asna war aan u hayn mid intii daroogo la soo siiyay xashiish iyo bahash cad ana war u hayn wuxuu ku hadlay wax kale oo wariyo baas shisheeye adeega intuu mikrofon soo qaatay hebel saa u dishay maxaa samaysay qof sheegay dilidiis ma jirto haddii xataa lagu qabto ana war u hayn saana samee kana samee talaalan cunug ilmihii dhan waa talaalan yihiin kas uma samee waa lagula talagalay
laba qayb bay siyaasiyiinta isku qaybiyeen laba qayb baa loo kala qaybiyey midna ummadda inuu miineeyo oo dhiigooda wax ku shubo midna inuu aktarnimo dheelo kana isdagaal kaasa isdagaal odayaasha iyo habraha salka ka baraareen oo cudurrada haleelay oo metaalka ka jiran oo baraha bulshada ku jira oo cugdada iyo argagaxa maskaxdooda ku jirta oo qalbiyadooda ilaahay madoobeeyo waxaan leenahay ummadaas ka fadhiista baraha bulshada ilmaha ha fadareenina anaka hana fadareenina waxaa naga dambeyn doonana ha fadareenina waxaan leenahay kuwa baraha bulshada shisheeyaha lacagta ka qaata walaalkood markuu ka soo qaato uu ka mid yahay ninkaa la leeyahay dib haddaan u fiiriyo daahir calisow ninka daahir calisow la yiraahdo oo u bilaabo baraha bulshada iyo ummadda Soomaaliyeed inuu isku halaago dalku maanta ku nool yahay walaalihiisa taariifka ku yimaada xirxira iyo kuwa soo booqda ummadii Soomaaliyeed ee ka harsan lacadahay lacagta ku bixiya in ilmaha la soo maandogsiyo qaraxa soo socdana kadib ku leh la sii diyaariyo siyaasiyiinta lacagta ka dhulka oo kanaalkiisa u furan yahay janaalkiisa inuu shacabka Soomaaliyeed cadow isaga dhigo sidii kuwii ka horeeyay dalka qaribay ummadan isku laayay ka fadhiisa magaaladan leenahay haddaan nahay dhalinta qurbo joogta ilbaan kugu haynaa iska keenjir hanjabaad ma ahee sharcigan ku hor keenaynaa waxa dambina waan kugu haynaa haddeertaana waxaa rabtaa dowlad kasta curada inaad dumiso kan dowladda heeya iyo kan mucaaradka dhexdiisaad ka shaqaysataa ummadaan isku halaagtaa waan ka warhaynaa caga dhigo intaan lagu jiifin waa naga digniin waa naga farteen waa naga waano waa naga tala qaado waa waxaa garata samaa haddii dib aan lagu dhacdhaco dalka waxaa ka jira aan dib ugu laabto odayaasha iyo habraha dadka ku waaninaya diinta inay ka baxaan oo nina isguursaday naag isguursata leh kuwa ka soo horjeeda Soomaali inay firkeeda tabco oo koro kuwa ka soo horjeeda inay dowlad Soomaaliyeed dhismato kuwa ka soo horjeeda kutubka quraanka oo dhaxaya xaawiye aadan la iskama sameyn kuwa masaajidada doonaya inay xiraan oo ilmaha rabaan kiniisada inay u dhisaan kuwa diimanka kale u adeega kuwa laaluushada soo qaatay kuwa kortartamaya xilka yaa qabanaya ee dowladda baan lacag ka soo qaata oo deenan dalka iyo ummadda Soomaali gelinaya ee ayaka wali kuwii ayna ka dhidhamin kuwa waxaas ku fikiraya waxaan leeyahay xilka iska dhiga dhalin yar oo ubaxawe madaxooda farashka ah oo enerjiga ku jira kaala ka arag ah oo tacliinta bartay oo ummadoodii dalkooda badbaadin kara oo cugdad iyo walaaltimo xumaas ku jirin oo akhlaaq iyo asluub la soo bariyo diin oo ummadooda wax tari kara oo okshishaaya meesha jalaafada uga dhigaya iyo meesha ku socdaan oo waraaqadaha aqrin kara oo wax iska saxiixeenin oo safreenin oo lacagtooda safri dalxiis ku bixinaynin oo ka fikiraya hooyada naaska caanaha la iyo cunuga yarka iyo macaloosha u baabay kuwaasaa jooga kuwaasaan doonaynaa xilka inay tastaan dal iyo dibad kuwooda jirnaana inay taliyaan ummadana ay hogaamiyaan adinkana insha Allah odayaashaas waxaan leeyahay habrahaas xilka iska dhig intaanan laga dhigan Soomaali wax sheeg wax kuma maqashee ficil wax kuma maqashaaye intaanan laga dhigin hufkeena luqadda ah iyo afka aan isaga celinayna hufka lama wadano
caalamkaan igu soo jeedinaynaa fashilaada dictatornimadii niga horeysay iyo umad gumaadkii niga horeeyay dadkii niga horeeyay meesha marayna maraysin taas ogsoonaada adinka iyo dabadhilafiyada social media ka buuxa cudurka qabyaalistnimada dhiigga ka galay oo kaankarada iyo aidiska ka daran iyo koronada iyo abowlada ka daran xagee lagu arka ummadan hogaamiyaashooda isku dhameeyeen xagee lagu arkay haddaad dhamayso shacabkaaga maxaa kuu hari warka dhageysanaya oo baraha bulshada fadhiyo haddaad hadda walaalkaa faraq ku dhigto ood ku jijimicsato maadaama aad wax kala aad heenin oo haddeer qaxooti tahay ama haddeer qaxootinimada ka baxday ma waxay kula tahay ina adigana lagu reebi doono neefku waxaa la yiri haddaad sulka ka gowracdo hoostiisa dambana dee imajihiisa dhaafi maysid oo shiilanaysaa ama kudaafadii qashinkaa ku ridaysaa taas waxaan ugula jeedaa walaalahayga qaaliga aan ku calaamadeynayaa waxay tahay dadka isku mooda maadaama qurba joog yihiin inay shisheeye noqdeen dabadhilifka inuu shisheeye noqday war sidii indiyaaninka amerikaanka tugsanaysaa waa maga allah maga rasuul aa leedahay supermarketada cuntada lagu iibiyo hortooda taasaa kuu dambeyn doonta guryaha ijaarada ku jirtana waa lagaa bixin doonaa waa balan haddaad dadkaaga dhamayso ciidaadana dad kale aad siiso ood u adeegto dollar yarood ku qaadato kuwaad dhashay owlaadaad dhali doonta ama owlaadaad dhashaa ka arki doontaa inay iscunaan dhexdooda oo kala haadaan haddaan dib ugu laabta haddana siyaasiga doqonka oo dalkiisi dadkiisa iibsanaya beecsanaya oo shahaadada beentaa shisheeyaha kasoo iibsanaya mutacalimka iska dhigo afarta kale aan soo bartay kooyaha iyo suudka soo xiranaya dadkiisa mutacalim isaga dhigaya dhahaya markii madaxweyne uu yahana yaa warba uma hayni goortii badaha iyo dhulka la kala beecsaday subxaan allahu alcadiim kan isku mooda inuu wariyaha yahay oo sheegaya baraha bulshada ka sheegaya asagana la mid weeye wariyaan ahay dhahaya suuqa waxa looga adeegta aniga waa aqaana luqadda qalaad maxaad u soo tabisaa maxaad kala falanqaysa maxaad wariye kartaa ummadda dhexdoodaad ka shaqaysaay waxa horumarka adduunka gaara iyo waxa adduunka si ka yahay iyo wixii kusoo kordho warkama haysida haddaad dal joogtay haddaad dibad joogtabay haddaad dal joogto madaxweynahaaga xataa kaamarada intii lagu qaado ma soo wareysan karti shirkuu soo saxiixa xataa nooma keeni karti shacab haddaan nahay iyo dadka firki u dambeyn doono dalka uma keeni kartid ma oo dabageli kartid be dahyada qorsan gadaal ayaa wax lagu kala saxiixdaa ummadana lagu kala iibsadaa heer waxaa la gaaray walaalahayga soomaaliyeed ilmaha saqiirada haddeertan soomaaliyeed inay maadaama soomaali dhadhalaysa inayna badan oo dalka laga suuliyo iyo ciidda aalayaal lagu tala jiraa taasaa lagu tala jiraa maxaa loo qaban keliya ay beerka xalano lagula baxsan subxaan allahu alcadiim maana damiirkana dhaqaaqayn haddaan nahay ubaxa haddeer soo baxay dalkooda wax tari lahaa taas waxaa kasii daran walaalahayga qaaliga shisheeyahan u moodna inay wax noo qabtaan oo ciidamada noo tababaraan shalamay daraaday ahayd markii la soo sheegnayay america inay dagaal qabow ku wada soomaaliya ayna markaan ahaynba hub adeegsi ee tahay lacag adeegsi maxay ka dhigan tahay dhambaalada shisheeyaha soo dira wariyaha kushaaga muxuu u sheegi lahay hadduu wariye yahay wariye ma ahee
warinimadiisa iyo taqluskiisa waa dadkiisa inuu isku dhameeyaan qarnimadana dumiyaan warnoo kama haynin uu dhahaa maxaa soo dhacay gadaalka gaar hadalka xaafu fahmo xaafna ma fahmo alla waa wuxuu suuqa ku adeegsanayay muxuu yaqaanaa saddexdaas qodob halkaas haddaan uga baxo waxaan qodob kali doonaa tan oo sufyaan dilaama yahay allahu yaclam dilaama yahay allahu yaclam laakiin inteena wax garadkaa waxna fahmaysa lama mara habaabin kare ogaado shacabka miskiinta iyo kuwa qurbaha la tacaalaya oolaadooda ilaalsanaya inay laga qaato iyo firkooda inuu bedelmo kama hadlayo kuwaas kuwa maandoogsada intii la sii dadkii la ilowsiiyey hubka isku qaata la yiri caasimad kastaba hub isku ridaysay inay xamar cadda joogaan iyo suuqa bakaaraha kuwaas kama hadlayo waxaan ka hadlaya dadka aqoonta leh maskaxdana u saaxiibka hadduu dilaa yahay waxaa ka caddaan lahayd walaalkeena mutacalimka profesorka ee soomaaliga wax soo bartay waxay ka caddaan lahayd markhaatigaasaa banaanka iskeena lama baad fiif iyo subscribe iyo hole laguma raadsado iyo like wariyaha dadka isku meyneeya weeye warbaraha bulshada wariyaha fadhiyow ka youtube-ka u furan yahow ka facebook-ka ka nacnaclow adiga ma waxaa u tahay albitarihii soomaalidaa tahay ninkan hadduu baraha bulshada galo dadkooda ka maqanya ayakaa soo xaadirinayo ma aha hooyo maskiina ninkeeda ka dhintay ilmaheeda ogoona intii lasoo jajoobo la yiraahdo ay tiraahdo kan wax iyaalo waxaa iga daran kan waranka igu walaaqay igu gudgudinayo kan waranka igu digdiginayo oo igu dugduginayo ayaa iga daran ma dhahdan wariyihii intay ka argagaxday wax la soo dhaafay bay aad faagtay tiri runaan ii sheegay soomaali igu nacama igu jeclaado kan kala leh allah wariyaan ahoo waxaa la soo yiri wuxuu igula ekaa wuxuu sitay warnabad nabadgelyaa lagu jirta hadduu wax sitana mataalaa la dhahaa alool dilaacaa la dhahaa beerka hoose wax laga soo muntahaa la dhahaa umaleynaa la dhahaa umaleen waa waxana halaagtay anaka albitara ma lihin haddii oo sufyaan dad dilay goobjoog lasoo dirqanay qabiilo dad ku dilay dhahaysa waa islaam weyn maxaa isee wax ka yihiin aa isleedahay maskaxdeeda taa ma tahay naagtu hadlaysa mase waa darooga kasoo dharagtay oo bargo marqaan weeye subxaan allah casa wajalla waxaan aragnay wax caadi ah ma aha soomaaliyeed wax caadi ah ma aha waxaan aragnay dadka baraha bulshada fadhiya ayaan la hadlayaa oo siyaasiyiinta isku sheegaya wariyaasha dhuuslayaasha caloosha buuran isku sheegaya cayna igama ahee waa xaqiiqda jirta ummadii aad lahayseen baraha bulshada ninkan soo galay hadduu dad lahay dadka ayaka ka tilmaamsanay maanta walaalkay qofka dilamayaan dadka ka aqoon weyn wasee wax niga yihiin miyaan dhehey ninkaas halkaas iyo halkaas walaalkay ku dilay dadka laga dila ma oga cidii dilay neenaasa la hadal raacaya meeqa neenaasa dadka yeeshaan war isku xishooda olayaasha lacagta la soo siiyo gabdhahoodana baraha bulshada soo galinayo dhahay aabeysaan uu yaalay kaasuu yaalay waa wax samcadda soomaali u dar waa waxa la doonayo wadaadada qodobadan inay ka hadlaan soomaaliyeed maalin walbana waxaa u taagan wadaad waxaan ka hadla joojiya fadeexadaad isku wadiin soomaaliyeed ninkan dhambaal buu waday warka haddar waxaan igu soo gonaadayaa ninkan dhambaal buu waday laba dhambaal buu waday midna waa inay ummadeena soomaaliyeed dhammaanaysa sidaa nii sheegay ay farcanto habkay ku farcanaysana xalaal ay noqoto aysan noqon maantay ilmaha yaryarka qurbaha lagu dhalo meelaha guryaha ilmaha lagu aruuri intay boostada loo garaco hoosta loo gelinayo xanuunkaas anakaa soo aragna naweydiiya ilmaha gaalada qaadatay oo haabiya hooyada xalaal iyo xaaraan waxay ku wada joogaan la ogeyn dowladana la ogeyn habarta waxa ka dhalay diintana lagu qabo
dhalinteena baaba'aysa Soomaali maad u jeedin afartan xaasle naagaha ka doodaya oo u taagana habrooshinka ay goomankii dhamaadeen waa kuwa isku mooda inay shisheeye noqdeen waa kuwa mooda yaa shisheeyaha waxay diinta ka sheegaysa inay run tahay war anaka carab baan nahay mase western aan ahayn mase dagaalka carab siyaasadda ka dhacaysa westernkan ku dhex jirnaa soo Soomaali ma nihin soo Afrikaan ma nihin soo dad mutacalimiin muslimiin oo fahmadooda dheerta quruxdoodana maasha Allah ay taa adduunka caalamka la yaaba ma nihin war say wax u wadin Soomaaliyeed ninkan aqoonyaan iyo hadduu xun yahay Soomaali way kii xun xumaan ku sheeg asaa xun kii wanaag ku sheegana asaa wanaagsan wuxuu oo Sufyaan yahay waa nahay hadduu dad dilana maxkamadaha caalamka jira dalku joogo dawladda ka dhisan ana baraha bulshada shacabka lama hawaabin awlaadana aan isku qaribin qabiilna aan laga dhex beeri meel walba afkiinaas asturtaan ay dhigi karaa waa nagu waano oo Sufyaan ninka la yiraahdo lambaasha kale soo diray waxay tahay oo aad iyo aad anaka muhiim nagu ah hadaan nahay dhalinta hadda soo kabcatay ma sheegay naagaha tahriibyada ku imaaday fiisooyinka naagaha ummadda Soomaaliyeed isku dhamaynaya iyo firka hadda soo kabcay codada ku beeraya ma sheegayo oo haysta westernka ilbax kuwaas ma sheegayo dhalinta Soomaaliyeed hadaan nahay wiili gabar baan noqonay waxaa muhiimad noo ah dhambaashas aan ka aragnaa taariikh Soomaaliyeed inay hoos geli rabto wixii lagu soo tabciyo lagu soo barbaariyo daba goranay ama maskaxda ka soo buuxsanay inay tahay laga yaabaan maleen oday oo meel ku qoray waa soon loqotiisaba qorneenba maxaa ka jira Soomaali inay xorinimo qaadan maxaa ka jira waa waxaan isweydiinayna dhalinteena Soomaali dal iyo dibad haddaan doonayna dadka wax u qaban lahaa inaan noqono maxaa ka jira taariikhda Soomaaliyeed inay laba gobol isku timaaday maxaa ka jira calanka Soomaaliyeed mid lagu xuso oo lagu cisay inay tahay qarnimada madow maxaa ka jira ninka wuxuu sheegayo ma wala waaya hal aqoonyana iyo hal mutacallim Soomaaliyeed mis la soo fadhiisto taariikh soo hordhigo dood wadaag la sameeyo waa la weysan yahay dad badanaa raba Allah hadda firka hadda hadii la ogaado dad wadnaha gacanta ku haya haday run tahay way run haday been tahayna waa been laakiin waxaan dhihi karnaa Soomaaliyeed hal laga garbaxo hadii ninkan laga garbixi way dhambaashu jiro dhambaashas waa dhambaal muhiim noo ah Soomaaliyeed idile qof calanka qoys calan maanta u taagan yahay federaal oo calanka gooni u yahay ma jirto taas ogaado calanka waa la wada leeyahay Soomaalinimadana waa hal qoomiyadana waa hal ciidana waa hal wiil iyo abtigiis hadaad meel ku kala gomaadeen siyaasiyiintiina Soomaaliyeed oo gabar iyo habeerteeda meel ku kala xirteen kuwii jabin lahaa waa qarniga hadda socdo oo albaabada u kala furay la iyo xuduudyada awoodaasna leh hadaad moodeen Soomaalinimada inay ku dhameystiranto ku bilaawato ku dhamaato mid wax isku falaan ah oo Titanic doontii soo raaco haddeertaani 10 rabo nolosha inuu bilaawo halkaan ka nacnaclay inaan ku qos qaadanayna taariikhdiisa may wariye aan ba ay qori karino luqadda shisheeye ku soo adeegto waxba nooma sheegaya anaka taariikhna wuxuu ka ogyahay ma jirto waxaan leenahay dhambaasha ninkan uu wada calanka ka wada calanka muhiim buu noo yahay naga jahal bixiyo aqoonyahanada Soomaaliyeedna fiidiyogan gaarsiiyo iyo mutacalimiinta hanaga jahal bixiyaan haduuna asaga dhambaal qaadin oo taad sheegayseen hanjabaadiina iyo musuqmaasuqiina iyo maxkamadii alle inay la keenay baraha bulshada nooga dhigteen iyo meeshii lagu kargal qaadi lahaa intiina jahwareysana mitaalka ka jiran adinkeeni taala
laakiin haddaan nahay dhalinta haddar soo kobcaday caalamkan gaarsiin doonaa waan baari doonaa taariikhda soomaaliyeed waana laga doodi doonaa adinko siyaasigiina saan u dhakooro adinkoo mutacalimkiina geesaska fifiirinayo saan u eyo waan arki doonaa adikoo siyaasiyiintii saan sidii xoolaha isku daba jooga yaa maxkamadaha caalamka waa la keeni doonaa haddii laga daba tago beenta iyo fashilka dalka lagu wadana ha laga joojiyaan kusoo gunaadaya soomaaliya ninkan dhambaashu jirana ha laga garbixiyo waxyaabahan dalka iyo dadka lagu halaagayana ha la joojiyo intaas iyo warbixin ee xambaarsaneed ee nii soo gudbisay Yusra Cadeey kana socota dhalinta maskaxdooda soo furmatay ee Soomaaliyeed ee qarankan dhammaantiin waxaan iiga tagayaa dal iyo dibad farcayna dambe iyo ubadka hadeertaan aan aniga ka mid ahay ha noolaadaan